maqasheen dawladda ku-meel gaadhka ee Soomaaliya iyo dawladda Kenya ayaa maanta ku kala socday magaalada Nairobi heshiis ku saabsan suudinta badda ee biyaha labada dal kala qaybiya. wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Abdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa heshiiska la saxday wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Kenya Moses Wetangula. inta kadib haddaba wariyaha BBC ee magaalada Nairobi Maxamuud Cali ayaa la kulmay wasiirka Abdiraxmaan Cabdishakuur oo faahfaahin weydiiyay heshiiskaasi waxa uu yahay waxaanu ku jawaabay sida tan. heshiiskan wuxuu ahaa heshiis ku saabsan in labada waddan Kenya iyo Soomaaliya ay dib u cusboonaysiiyaan arrinta la xiriirta waxa la yiraahdo continental shelves oo in dawlad kasta ay xaq u leedahay wixii ka dambeeya 200 maaragtay ayada xadkeeda oo continental shelfska aan sheegay inay leedahay markaas si submissionkaas loo sameeyo oo 20 sano hadda ka bacdi expire noqdo dhacay oo deadline-kiisana uu yahay 13 May si arrintaas dawladuhu labada dawladood baa heshiiskan wuxuu ahay waa memorandum of understanding in labada waddan ay dhiibi karaan ay United Nations-ka qaybta u qaabilsan badaha inay u dhiibo karaan cusboonaysiintaas inay sameey karaan labada waddan inay isku afgarteen. marka heshiiskan wuxuu khuseeyaa oo uu saameynayaa Soomaaliya xuduudda dhinaca badda maya xuduudda dhinaca badda hadda saameyn kuma leh wixii xuduud badeed inay labada dawladood mid walba sideeda ayada ay u xadidato waxyaalaha yaab kale oo kamid ah inay Kenya iyo Soomaaliya aysan calaamaysnayn xuduudda baddooda marka wixii xuduudda badda ku la xiriir inay dawlad walba heshiiska waxa ku qoran sideeda ayada ay ugu geysanayso hay'adda UN ku qaabilsan arrimaha badaha iyo waxa la xiriira dhinaca kale dawladda ku-meel gaadhka ahaan maxaad ka helaysaan heshiiskan dee waxa ku xiran oo sida markii la geeyay golaha wasiirada dood dheer laga yeeshay wasiirka shaqalaha uu keenay loo saaray wasiirka laga codsaday inuu dad oo khubara oo farsamo yaqaan arrimaha la xiriira uu keeno waxaan fursad u helnay marka dad Soomaaliyeed iyo dad ajnabi ah intaba inaan loogu yeero magaalada Muqdisho iyo 3 bari joogaan oo la ogaado waxa waxay yihiin iyo xogta ay ku salaysan yihiin sababta faa'iidan keenayna waxa waaye inaan sameeyno cusboonaysiin inaan sameeyno ayaa waxaan u baahanahay dawladda aan naga dhaxayso xuduudda badda sidoo kale waxay tahay aan la seexano Yemen wasiirka hadda wuxuu ii sheegay markaan heshiiska seexanay inuu u duulay Tanzania la seexan doono heshiis noocan oo kale taa marka technically waxa loo baahan yahay markii aad resubmission sameynayso ama cusboonaysanayso area-da baddaada ka baxsan inta adiga xaq u leedahay wixii ka baxsan activity iyo wixii aad ka sameynayso intaba inaad dawladda dariskaaga aad heshiiskaas ku ogtihiin aad ku wada cusboonaysiisaan marka sida muuqato Kenya ku darsanaysa dhul Soomaaliya may dhulku darsi la'aan arrinta maaha inaad cusboonaysiisato xuduudda baddaada adiga aad leedahay waxa u baahan tahay inaad dawladda badda dariska kula inaad isku afgarantaan arrintaas inaad claim oo resubmission inaad labadiina wada sameysaan laakiin heshiiskan aad saxdeen Kenya wuxuu u ogolaanayaa على عقل إن أي واحد كتر ستصومها أو ماشي وحدود حتى مركي وراء تاجنا أي كدركته ما واحد كدرس إيه واحد كدميد إيه واحد زياسي أرنت دم بهشيسك وكم قرن هنا ركتنا في هنا هشيسك واحد قرن كلي وحاول لبعض الدولات إن أي حق وليهين لبعض إن يونايتد نيشن كعصبون سيستان باوندريز كحدوده ضعيفة أي ليهين مركي حدود هالكي تاجنا وحبس كمان بدريه waxba iskama bedelayo hadii ay dood qabto Kenya waa inay markaas ayada sideeda u address gareysay United Nations ay sheegtaa wixii ay dood ka qabto heshiiska marka sidaad u dhigayso waa MOU aad leedahay waxa waa heshiis labada dawladood ay gaareen soo lama baxna markii inuu laga qayb galiya baarlamaanka waa run hadii wax xuduud hadii oo halaha xuduud bad in la kala xadido hadii oo halaha maaragtay wax noocaas oo kale u baahnaa la tan kaliya waxa waaye dawladda Soomaaliya si ay ayadu u cusboonaysiisato xuduudda baddeed ay u baahan tahay dawladaha ay dariska yihiin inay joint understanding ay ka yeeshaan faham wada jir ah marka intaas kaliya ayaa ku qoran halkan marka heshiis hadda leeyahay Kenya intaas ay leedahay Soomaaliya intaas ay leedahay oo cabinet la geeyo ama baarlamaan la geeyo u baahan ma aha wasiir marka heshiiskan hadda aad saxiixdeen golaha wasiirada ma ka dhan yihiin oo ma ku heshiiyeen in sidaan iyada wax loo saxiixo golaha wasiirada sidaan fahamsanahay waa in ay ka fadhiisteen arrintan dadka expertise-ka khibrada u yeeranay inay 3 saac la fadhiyeen u sharaxeen su'aalaha ku filan ay weydiiyeen markaasna ay arrintaas saas ay u fahamsanaadeen isku raaceen
prime ministerkana marka uu saas maaragtay arrinta uu ku ogolaaday madaxweynahana loogu gudbiyo uu ku ogolaaday marka saas ayaan ku saxinay heshiiska halka marka waxaa kaloo la isweydiin karaa maxay tahay sababta arrintan hadda loo sameynayo Soomaaliya muddo 20 sano ku dhaweeyay dawlad aan shaqaynin ka jirtay waxaa loo sameynaa waxaa expire noqonayo dhacay 13 May Soomaaliya intii ay badeeda iyo 200 xuduudda badeeda ku ekayd ayaa waxay submissionkii ay sameeyay lahayd United Nations ayaa wuxuu ku yahay 13 May Kenya sidoo kale waa ka dhacaya marka inay dawladaha cusboonaysiistaan ay u baahan yihiin inta ay sakada haddii Soomaaliya cusboonaysiin waxay noqonaysaa badeeda inay hoos tagto International Maritime maaragtay committee inay hoos tagto marka si aad badaada u cusboonaysid waxa u baahan tahay dawladda dariska aad tihiin inaad isfaham wada jir ah ku cusboonaysitaan qolada wixii markaas territory-gooda waxay tahay inaad Yemen la saxataan sida dadka expertise-ka oo khubarada oo tafaasiisha arrintan ay siiyay noo sheegay waxa way dawladaha badda wadaago dhanba inay heshiis noocan markii ay sameynayaan submission-ka inay wada sameeyaan understanding noocan inay wada sameeyaan dad badan ayaa la arkay inay isweydiinayaan inkastoo leedahay waxba iskama bedelay